كحيسي حاشك قرصوميو وأصلي هاي سودوين تام الحويين ولا وايد ولا ضوء برلمان كان ولا وايد ولا اعتراض فلان ولا. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa xaqiiqa faallada barnaamijkeenu caawa wuxuu noqonayaa isbedeladii dhacay doorashadii 2017 ee dawladda maanta joogtaa ay ku timi iyo maraaxilkii dalku soo maray. qodobkaas waa ka koowaad in ka faalloonayo. qodobka labaadna waxa uu noqonayaa indhasarcaadka xirsi xaaji cali iyo cabdiraxmaan ciro ay dhigeen oo iyana aan dadka u iftiimin doono. labada qodob ayaan ka hadli doonaa, ka faalloon doonaa. aan bilaabay qodobka koowaad waa doorashadii 2017 isbeddelka dalka ka dhacay. inta meel fog wax ka aragta ama aragtida dheeri way qiimayn kartaa isbeddelka dhacay. inta aan qiimayn karinna waynu u iftiiminaynaa. inta ilowday ee aan wixii shalay iyo daraad xasuusanna farteen ugu fiiqana waa xasuusinayna. dalka dawlado kala dambeeyey oo iska soo dhaxlay dhammaantood waxay ka sinaayeen in dalka laga laaluusho dad dalka u dhashay oo hoggaamiye dhaqameed leh oo afmiishaar leh oo siyaasiyiin leh, kuwaasoo dawladnimada lugta hayey. xaqiiqatan maraaxilka laaluushka dadka laga laaluushayaa dee heer kii ugu horreeyey waxay ahayd mid macquula oo dalka hubka dhigis baa lagu samaynayo ina cigaal ku adeegsanayey. lagama maarmaan bay ahayd inuu hoggaanka dhaqanka isticmaalo oo uu soo dhoweeyo oo uu qasnada u furo oo hubka ka dhigo dariiq saxa bay ahayd. laakiin waxay noqotay mid iyaguna ay ku mabeen, dawladihii ka dambeeyena halkii una ka miiseen oo hadhi weydey, taasoo ina dhexashiishay wax caadiya inay noqoto oo dawladnimadii aynu ka dhigannay shirkad qaydhinka lagu qaybsado wixiina soo gala oo in koobani dhaqaalaha dalka la siiyo siyaabo kala duwanna ay u qaataan, mid toosa iyo mid dadbanba. qaar ganacsiyo dawladaysan lagu naasnuujinayo oo loo miisayo oo aan sharcigii la marinayn, oon caddaaladdii la marinayn, oo qaraabakiil iyo qof jeclaysi uba soo gelayso. qaar haddii alla kuu roonya hoggaankii dhaqanka oo cid walbale, deegaan walba iyo gobol walbale oo haba kala badnaadaane mid walba dad laga samaysto oo loo qaybinayo. waxay dawladdii ugu dambaysay ku dartay, runtaan isu sheegaynaaye, mid inagu cusub oo siyaasiyiin qurbaha iyo gudahaba jooga oo aan dalka shaqo u haynin mushahar caadi la siiyo oo badan. taasoo dhacday. hayb walba way lahaayeen dadkaasi, haba kala badnaadaane, lama odhan karo cid gaaray ahaayeen. hayb walba iyo deegaan walba way lahaayeen in dad lagu naasnuujinayey oo aynu gaadhnay heerkii ugu xumaa ee corruptionka, taasoo dawladnimadii ka dhigtay aynu dariiqadii ka leexannay. dawladdii timi waxay meesha ka saartay oo ay caddaalad uga saartay dhammaan hoggaankii dhaqanka ee madaxtooyada taagnaa. si cadliya ba uga saartay. qaar madaxweynaha xigaalkiisa sheeganayey oo inay la hayb yihiin sheeganayey, qaar kaloo inay jeegaan kula la yihiin sheeganayey, oo inay doorteen oo iyagu dhisteen sheeganayey oo inta kale ka sheeganayey, iyo kuwii aan dooran ka soo horjeeday. intuba waxaa laga simay in laga safeeyey madaxtooyadii oo dawladnimo toosa la qaatay. waxaa meesha ka baxay ayaguna saxaafaddii la baabiiyey ee inamada yaryaree suxufiyiintii wariyayaashii guryaha wada dhisteen ee baadda la siin jiray.
oo iyana meeshii laga saaray. waxaa meeshii ka baxay dad la raasnuusin jiray oo mushaharooyin aanay shaqaysan gudaha iyo dibaddaba ku qaadan jiray. waxaa meesha ka baxay caaglayaashii mushaharka qaadan jiray ciidamada iyo shaqaalaha dowladdaba ku jiray, kuwaasoo dhammaantood aynu ogeyn la tirakoobay oo dad 3 meelood shaqo ka qaata mushaar ka qaata ay soo baxeen. waxaasoo dhami meeshay ka baxeen. waxaa meesha ka baxay wasiir waliba wasaaradda uu leeyahay isagaa ugu sarreeyey oo wuxuu doono ku tagrifali jiray. maanta wasiir waliba mushaharkiisa ay ku kooban yahay oo wuxuu noqday wasiir la xisaabtamayo oo madaxweyne xay oo soo eegaya uu la xisaabtamayo oo $5,000 wax ka badan aanu seexiisa lagala bixi karin bankiga. waxaynu ogeyn wasiiradii hore markay deegaanada qaar tagayaan in madaxweynaha aanay ka dhicin oo waxaan ku roob lacag dii jiray. maantana awoodu male ku jooga 10 qof u yimaada ma fadhiisin karaan. waa isbedello muuqda oo aan la dafiri karin. waxaynu ogeyn oo aynu ka dhaxalay dowladihii hore in ilaa dumarka marka raggii la dhaafay ay talada dalka wax ku lahaayeen oo tan iyo tii kasii horreysaba ay jirtay. maantana ma naqaano madaxweynaha xaasaskiisa ma naqaano, manayna arag qof sheegayaana ma jiro. dowladna shaqo kuma leh oo beri bay ka yihiin. isbedelada dhacay bay ka mid tahay la dafiri karin. isbedelada dhacay waxay keeneen qaylo iyo dagaal ay dagaalamayaan dadkii waxaa qabay ee booliga qabay ee naasnuujintaa qabay ee laaluushkaa qabay ee ganacsigaa qabay ee waxaa ninbas wejiga uu ku soo gelayay qabay qaylay keeneen iyo dagaal iyo mucaaradad koono walba leh oo mucaarad iyo maxaafidba leh. waa loo dhabar adayg. waxaa kale oo intaa iyana garab socotay dagaal kale oo inagaga socday Soomaaliya oo abid aanay sayno la dagaalantiin intii muuse bixi joogay inuu la dagaalamin oo ay dadkeena dhex gashay oo ay dhaqaale nagu dhex gashay oo ay lacag nagu dhex gashay oo ay dagaal sukoyeen ka rid damcday oo ay caruurteeni iyo dumarkeeni iyo intii jiracsanayd iyo hogaamiye dhaqameedkiiba dhex gashay oo lacag nagu fangareynaysa. jabhada la samaystay oo aynu ogeyn raad bay ku lahay dowladda xamar xisbiga wadana ejabuu ahaa. dagaalkii gudaha inagaga bilaabmay ee hunguriga ka bilaabmay hunguri maskaxa dadka lacagta ku qabay ka bilaabmay waxa inagaga isna wehelinayay kii dowladda Soomaaliya lagu soo qaatay. waxa u sii dheeraa mid kale oo jaarka inagaga socday. waxaasoo dhan buu madaxweynaha maanta jooga ka dabaashay. waxaa la gaadhay heer la yidhaahdo madaxweynihii Soomaaliya ee aynu ishaynay dagaalku inaga dhaxeeyay meel ku heshiinaana jirin Hargeysa inagu keeno. rag xisbiyada ku jira oo madax sheeganaya oo siyaasiyiin sheeganaya baa la soo dhaweeyay oo la socday dagaalkaasoo dhanna qayb ka ah oo aan la dafiri karin taariikhduna qorayso. maalinteedana laga hadlo dagaalkii inagu socday ee dibadda iyo gudaha bay inaga socday xaalad iyo awood iyo raganimo ka dabaashay madaxweynaha jooga. waxaana soo noqotay tiisi baan loo soo noqday. xadhiggii dowladaha jaarku xidheen ee walay nagu xidheenba mid buu ka xidhay. ciddii walu samaystay la samaystay cid buu samaystay. tiisi baa loo soo noqday. dad badan baa maanta lagu khalkhalgelinayaa oo la odhanayaa maatida loo sheegayaa saylac baa la soo weerarayaa iyo saylac baa la bixinayaa iyo sheekooyin raqiisa. arrinta saylac xilli bay ahayd damaceedu wuu jiray. Soomaaliya qayb ka ahayd qaar nala joogan dadkeena ay u haysano siyaasiyiin qayb ka ahaa xilli bay ahayd laakiin maanta ma jiro dhitaalo waa la isla dhaafay. waxa dhigi la xidhay xarkaa loo samaystay. ma rabo wax badan banaanka soo dhigo aan ka hadlo laakiin waan dulka xaadinaya. sax ma ahayn aan ka hadla arrimaha qaar aan ogahay oo dhiib loo ogahay laakiin waan dulka xaadinaya. dowladda Itoobiya dad baa inaga dhaxaysa, nabadgelyo inaga dhaxaysa, jaar wanaag baa inaga dhaxeeya, inagala dhaxayn doona. maamuladii hore kan iyo kuwa dambaba way inaga dhaxayn doonaan. ilaahay baa iskeen bado bogcad bay ku wadnaa. istiraatiijiyad goob ah iyo xuduud dheerna waynu la wadaagnaayo
dantooda ku jirta wanaageen iyo ammaankeena iyo inaynu saaxiib ahaano dantooda ku jirta inaga dhagteena ku jirta oo dekadaas malaayinka doorar la geliyay dadka loo samaystay bay ka mid tahay haddana waxa meesha taalla inaynu ku kala aroorayno siyaasadda gobolka oo quwada ku hurdamayaan shaki male taasi ayaguna layn bay raaceen inaguna laynka loo ka soo horjeedaan raacnay labadaa layn baynu kala haysanaa inaynu kala haysanana ayaguna xor bay u yihiin inaguna xor bayno nin walba dantiisa isagaa yaqaana haddana in waxay naga dhexeeyaan ilaashano inagoo kala xora oo mid walba laynkiisa uu wato waxay naga dhexeeya ilaashano ayagana waa u dan inagana waa inoo dan tii madaxweynaha loo soo noqday maanta waxaa loo soo noqday in waxa inaga dhexeeya ee muhiimka aanu wada ilaashano ee ammaanku ka mid yahay ee ganacsigu ka mid yahay ee saaxiibtinimadu ka mid tahay waxa aynu kala leenahay nin waliba halkiisa uu dan moodo uu wato Itoobiya laguma qasbi karo inay Soomaaliland ictiraafto Itoobiya laguma qasbi karo inay sidan fikirno fikirto inaga laguma qasbi karo waxay naga dhexeeya inaynu wada ilaashano labada dawladood dan u ah hadday ilaashanayaan inaguna waa ilaashanayna muhiimaddu waxa weeyaan madaxweynaheena in loo soo noqday walaalnimadii iyo wanaaggii uu Itoobiya u hayay in loo soo noqday nin walibana laynkiisii uu haystaa oo ayaguna laynkooda ka leexan maayaan oo inagu kama leexin karno innagana kaynu haysanin nagama leexin karaan haddaynu Taiwan iyo Maraykan la xidhannay ayaguna Shiina iyo Turki iyo xulufada kale ay la xidheen xaq bay u leeyihiin inaguna xaq baynu leenahay taa in la kala fahmaa muhiima arrin maanta seelacoo taaganina ma jirta ee aynu waxda dhisano ayay Itoobiya leedahay Soomaaliland ka ogolaatay inuu wada shaqeysano waxay naga dhexeeyaan ilaashano dawlad walibana danteeda wadata marka taada ka adkaata ee wax qabsato ayaa jaarkaaguna ku qiimeynaya marka laakiin waxba qabsan weydo cidna ku qiimeynayso وسيدا أرنتان كهذليا إلا فهمه أيانا مهمة مهمة ولا فهم هلا هاي مركا مراحل كجودها يدبد بالصومري Somaliland الدجال كجودها يدبد بكوهي لقاهي وكسر فاشت وحنا كجب حضي تصلوا على الضيق إيوه هجان ضاعده ودلكيسو meel gaadho doonayay ragii ka soo horjeeday ee dagaalka qaybta ka ahaana way isjalayn taariikhduna way qori doontaa halka waxa ka baxaya isbedelkii waxaan soo noqonayaa Cabdiraxmaan Cirre iyo Xirsi Xaaji Cali Cabdiraxmaan Cirre ku horeynayaa Cabdiraxmaan Cirre wuxuu ku hadlay hadalkiisa ugu dambeeyay mid ka hor imanaya qarannimada iyo danta guud ee Soomaaliland mana aha markii ugu horeysay uu saas oo kale u hadlo way duubeen ajardiis haddaan sidaas soo taxnaa ciiday ka badan yihiin oo meesha waqtiga ani saamaxay Cabdiraxmaan Cirre horu ugu horyimi National Day-ga oo ay dhin May ayuu ku sheegay maalin aan la wada lahayn Cabdiraxmaan Cirre horu ugu horyimi horumarkii dekada Berbera oo ku sheegay madaxweynihii hore ku saaray maxkamad kamaanta joogana ku eeday isagoo haddana maalintii lagu najaxay ka qayb galay wanqashi dekada cusub ee ballaaran ee malaa'ika doorar la geliyay Cabdiraxmaan Cirre dalka markii uu sarfaafayay ee dagaaladaasi ku socdeen kuwii dagaalka la ku waday buu la saftay siyaasadda dibaddu kala saftay oo la mid buu ahaa iyaga dhaqaalay siinayeen gadar baa siinaysay oo farmaajo siinayay oo uu la socday shabahaduu sameeyay oo gudoomiye ku-xigeenka musharax ku-xigeenkiisa Maxamed Cali uu public kaga qodbadeeyay shirkii Burco inay shabahada abuureen raja abuuraya ma wax la dafir karo galbeedka iyo barigaba way ka sameeyeen shabahada waxa lagaga dabaashay dushii iyo taladii madaxweynaha maanta jooga iyadoo la heli karayay 40 kanina caara la socdeen agta la mariyo sidii shalay ba xirsi uu u mariyay reeb uu lacagta ilaa kuwaas reer Somaliland baahan kayuna reer Somaliland bay wax u dhaxeeyay jirin
midna ninkaa yare fududee dadka inagu wada gaadhiga ayaa cagta mariyey kana ninkaa hayinka ah ayaa ka dabaashay waxaa la doonayey in dagaal sokeeya dhaco 40 markuu cagta mariyo laga dhiga in madaxweyne qabiil weeraraya talaa lagaga baxaya caqli tii laynaga rabayna may dhicin cabdiraxmaan waxaan leeyahay hadalkaagii aad shalay tidhi kuwii hore u tidhi waxba kama duwana safarka aad ku canjalaysa madaxweynahana iyana ma cusbo horena waa kii markuu madaxweynuhu Kenya tagay ee uu buuggii madaxda adduunku soo booqato dalka Kenya uu saxiixay adiguna aad ka daba dhooftay Kenya safaaraddii Soomaaliya tagtay adiguna safaaraddii Soomaaliya farmaajo buuggeeda soo saxiixday maanta safarkaagana maalintii la ogaaday madaxweynuhu Itoobiya tagayo ayaa buukin gareystay tigirka wala cadaan wala wadoogi maatida iyo dadka masaakiinta aba ayaana isleeda khalkhali oo dhabqi baad isleeda wanaaga iyo horumarka iyo waxa loo soo noqday madaxweynaha dalka loo soo noqday ee nin kastoo tijaabiyay inuu muqooniyo oo u soo noqday tiisi ayaa isleeda dhabqi mana dhabqin kartid taariikhdana ma bedeli kartid beenta aad ku nooshahayna way ka hor imanaysaa mid shaqayn doonta ma aha doorashada aad u waalatay iyo ururada aad u waalatay baan kaaga hadlaya doorashadu dalku waa kii shalay iyo daraad dalku waa kii 5 sanadood inta lagu doortay xildhibaan gudoomiyihiisa baarlamaanka noqotay aad 12 sano fadhiday iyadoo 5 lagu doortay dalku waa kii dawladdii shalay iyo tii ka horeysayba muddada loo kordhiyey ee aan balaaya ka dhicin iyadoo weliba duruufo jirin duruufaha maanta jiray doorashooyinka isa saarani waxba lagaa weydiin maayo muddo kordhiskeeda waxna kama bedeli kartid xisbiyada iyo madaxweynuhuna muddo ma kordhiyaan guddida doorashooyinka ayaa jadwalka samaysa guurtiduna iyadaa ka jawaabto muddada ay suuragal tahay kordhisa waanay haddii loo baahdana way dhacaysaa waxna kama bedeli kartid xalaaliya waxaad ka bedeli kartaa ma jirto dalku mid maanta dhashay maaha foojariga ninkaagaa weyne aad u badheerayso ee aad mar walba canjalaysa madaxda qaranka ee intaad kursigii madaxweynuhu ku fadhiistay VIP da airportka ka yaalay intaad si tuuga ku fadhiisatay aad sawirka iskaga qaaday mid soconaysa oo meel ku gaarsiinaysa maaha hablaha yaryar ayaa aroosada kursigeeda marka la dhisayo isku sawira oo iska dhiga aroosadii kuwaasaad la caqlitood la mid tahay waxaan kuu sheegayaa waxaad ku hadashay ee dalka ka hor imanaya nin kastoo Soomaaliland u dhashayna wuu arkaya horena wuu arkay mana aha markii koowaad ku hadasho waxaagii oo dhan ba ayaa recording oo record garaysan xisbi mucaarida ma tiid Soomaaliland ma tiid nin kursi doonaya ma tiid haddaad tahay ka maanta joogaad ka wanaagsanaan leedo kamaad hor timaadeen danta qaranka ee naga dhaxaysa alla waxaad ka bedeli karto gacan kugu jira ma jiro Etoobiyana been baad ka sheegaysaa alla waxay ku soo casuntay iyo waxay ku falastay wax gacan kugu jira midna ma jiro been baad u badheeraysaa halka ciidanka ka baxay xirsi xaaji cali baan u garayaa xirsi xaaji cali shalay toole inda sarcaad buu dhigay inda sarcaadka uu dhigay dhawaan bay ahayd intuu iska hadlay ninkaasi oo hadal fudaydkiisa ugu dhashay uu ku hadlay inuu beel dhan aflagaadiyey oo uu yidhi cali guray oo qura arrinteeda ka sheegay inta kalena basaasin baa tiin warka ii keento oo aan oo basaasin ku sheegay xisbi lamu hadalay reer buu la hadlay magac dhabay fudayd iyo aqli yaraan iyo khibrad la'aan baa ka yeersisay oo ninkaasi inuu wax siiyo oo lacag siiyo masruufo yes taasna mooyaane in kalaba mu arag because kuma dhiiradeen waxyaabaha qaar kuma u dhacay waxyaabaha qaar ficilada qaar sameeyo wuxuu ku gumaystay in badan shilimada uu xaaraanta ku helay oo qof qura oranaya war wad qaldantay dadka qalad ka daa babu aragba because dad uu gumeeyay baa hoos jooga oo ku aqli badso ku gumeeyay shil qaladkii maalinta uu galay ayuu raadkiisa damcay inuu masaxo nin badheero muu noqon oo intuu hadlay yiraahdo warniyo waan qaldamay hadalku binaadan baan hoow iga dhacay xaal qaata muu oran qalad kale u sameeyay lacag intuu u soo dhiibay nimankii xisbigiisa ku jiray habarowal
ina jaambiir iyo rag kaleba ka mid yihiin ayuu yidhi iska dhiga inay casuunteen xisbiga casuunteen iyo annaga cidda is casuumaysa indha sarcaad ka dhigaysana wallahi isaga waniga haadii maray foojari kaluu reerkii ka been abuuranayo ayuu sameeyey ka dhigay habar wal casuuntay mana casuumay inta xisbigiisu intuu lacagta u dhibo soo fank lacagta bixiyay inay iska dhigeen inay casuunteen waxaanu ku raad aas-aasiyey wixii uu sameeyey haddana intuu bareeray kamuu hadale wuxuu yidhi kulmiyaan la hadlayey habar uga lamaan hadlayin kulmiye afkiisa kamuu sheegin kulmiyana isaga uma basaasay kulmiye way sayaan u tartamaya waxaan leeyahay indha sarcaadka aad dhigayso dadku caruur maaha aad tala adduun waxaad ka taqaanaa lacagaad qaybso ugu casuuma iyo indha sarcaad aad dhigto iyo dadaad ka hadashiiso tiraadna hebelow heer sheego adar reer sheego waxaasi waa wax lagu garanayo lagu fahmayo caruur maaha dadku qaladkuna bini'aadamku wuu ka yimaadaaye bareer ilaahay nin buu kaa dhigayo qaladkii aad heeraha ka gashay qaranka ah xaal ka bixi foojariga aad samaysad leeda habar walba casuuntena xaal ka bixi ururaduna waa furan yihiin wixii aad hambaliyeysay ee aad ku hadashay aamin oo sug jadwalka waxaa leh doorashada jadwalkeeda guddida doorashooyinka muddo kordhintana waxa leh haddii loo baahdo kuwii shalay markaad joogtay kordhiyey ee adigu aad lahayd cirka soo hindhisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu